kamid ah waa Shushu Cabdallah, the best Somali TikTokers baan karnaa. Say ku tagi kartaa Canada. xafladeeda nooga dhici kartaa hotel The Kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتم عنو wanaagsan guys soo dhawaada qof waa xamaar idris inay yiro xaasna lama jaray wallahi billahi xaasideeyay ko Soomaali xaasiday oo kaasoo kale waxaan leeyahay asxaabta muuqaalkeen maanta wax kale kama hadlayo waxaan leeyahay muuqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay Shushu Cabdallah sida nin kale xaasna noqono qofka uu muuqaal duubay in laga hadla ma fiicna kowdey marka Soomaaliya xaasnimo iska daaya. So guys maanta waxa muuqaalkeen uu ka kooban yahay ama uu ka hadlayo waxa weeye 1 million followers TikTok sidee loo gaari karaa ma macnaheedu macni in aan gaarsiino qof kamid ah waa Shushu Cabdallah, the best Somali TikTokers baan karnaa marka waxa la oranayay say ku tagi kartaa Canada. xafladeeda nooga dhici kartaa hotel The Kale oo ku dhex yaala madaarka fiisahaas waa diyaar ma filaya kullee haddii 1 million ka ay gaadho 1 million kana waxa gaarsiin kara waa idinka. So guys waxaan oran lahaa maanta aanu hagar baxno aanu kacno aan walaasheen maxay ahaday gaarsiino meeshaas iyo meel ka fara badan aan ka yaabino TikTok-geeda markii aan muuqaalka daawaday wuxuu marayay waxa u harsanaa 60,000 hadda waxa u harsan 12,000 oo kaliya waqtiga muuqaalkan idin soo gaaro waxa dhici karta in 5,000 ama 10,000 wax sanaad waxaan rajeynayaa dhammaan asxaabtayda inta muuqaalkan daawata inta aan maxay TikTok ka follow gareyn in ay soo follow gareeyaan intii ay follow gareysantayna waa mahadsantiin Canada kulli ana gaari mise gaari lama raacay diyaarad waan raacay qofka ku xiga ayaa noqon doona laftarkayga balanqaad ayaa maxay rajeynayaa in la sameeyo aad iyo aad baan u jecelahay in asxaabta muuqaalkooda daawo guys waxaan wada fiirin doonaa muuqaalkaas hadda intuu marayo waa yahay wow waa kana waxaad ii qorta TikTok waa yahay guys waa kaas waxaan ku qoraynaa Shushu Cabdallah kan sayno saariyo Shushu Cabdallah adkana waa kana ana idin dhageysanaya muuqaalka waxa daawaday 889.7k 1 day waa kana muuqaalka Shushu Cabdallah wow السلام عليكم صاحبتي waxaan sheegaa waxa in liismay balanqaadi aad u waaweyn laba balanqaad waliba zaid u siiween labada balanqaadna waxay tahay Visa Canada bayna loo maleynaya asxaabta laakiin waa iga dhab Visa Canada iyo waxa kale to xafladeeda in lagu dhigayo Hotel The Kale oo ku yaalo Elboorka gudihiisa sideen ku gaari karaa marka balanqaadka sidee ku gaari karaa waxa kamid ah 65,000 ay dhiman TikTok-geyga 1 million ka waxa la dhahay 1 million ka hadaa gashid sanadka cusub haweenka sanadka cusub hadaa gashid balanqaadkaas waa leedahay marka asxaabtu waxay rajeenayaan 1 million in la gaarsiiyo dhaqso si balanqaadkaas seeto liigu oofiyo sanadka cusub hadaan dhaafo balanqaadkaas Visa Canada waa ever Hotel The Kale xafladeeda ma lagu dhigi doono marka insha Allah waxa rajeenayaa dhamaantiinaba ina igu dhaqsiisiin milyanka 3 cisho bisa ka dhamana u maleynaya ma salaama guys amazing waxay u dhinaa marka 65,000 meelahaas bay tiri hadda waxay maraysaa 986,000 oo followers maxaa ka dhiman booda karna waa wax yar oo aad u dhowr iyo 10,000 lagu gaarsiin karaa maantii beri oo jeedaan hadda inta haysato waxa weeye waa 986.8k marka guys waxaan idinka codsan lahaa si dhaqso ah in muuqaalkaas iyo maxay halka flowga soo booqdo
oo la gaarsiiyo 1 milyan si aan u eegno ballanqaadkaas inuu xaqiiqo noqdo inuusan xaqiiqo noqon doonin kulli waxaan rajeynayaa ballanqaadkaas in maxay ay gaari doonto Shushu Cabdalla fiisa Canada iyo hotel ku yaala Dekel hotel Dekel la yiraahdo oo ku yaala madaarka dhexdiisa in ay ka dhici doonto xafladeeda 1 milyan hore waxaan u maqli jirnay ama la oran jiray adduunyada ninkii nool maxaa aragti ku laabo soo ma waa in laga yaabiyaa walaashin iyo maxay qofka ballanka qaaday wax yar oo aad u kooban baa hadda harsan intaasna waa la gaarsiin karaa kolley intaa soo gaarsiiyey maanta in ka badanna waa gaarsiin kartaa ballanqaadkaasna yaa la seejin hadda ka hor asxaabtaan ay seejisay ballanqaadkaas wuxuu ahaa waxaa galnay aniga nin saaxiibkay ah waxaa la ii qabtay 2 days 2 days haddii aad ku soo xeegelisay baa lagu yidhi ugu yaraan 5,000 oo qof macnihii waqtigaa waxay ahayd waqti aan aad u dadaalay muuqaaladayda ma badnaayeen 2 days haddii aad 5,000 oo qof kusoo xeegeliso 2 days way badnayd laakiin YouTube marka loo eego aad bay u aragtay in maxay qofku 5,000 hal maalin soo xeegeliya maantii waan ka gaarsiin kari waayey 3,500 baan gaarsiin intii kalena maxay ahayd wala yacfiyey ballanqaadkiina divided by 2 walada iyo bardalisiiyey barna lagala hadlay kooxda odhan lahaa jaaniskan iyaan la dhaafin walaashay jaaniskan iyaan la dhaafin in maxay ahayd halkaas 1 milyan baa lagu soo xariiqaa waxay noqon doontaa baan rajeynayaa qofta labaad ee Samiixa Qalin ku soo xigta macnii 1 milyan inteena Soomaalida ah cid ka gaadhay Allahu a'lam sheegi karo Soomaalida inta ku isticmaasha maxay ee Afrika joogta 1 milyan waxa gaadhay Samiixa Qalin Shushu Cabdalla ku soo xigta waxaan rajeynayaa insha Allah taala in loo gaarsiin doono aad iyo aad baan u jecelahay in maxay ballanqaadkaas aan wada aragno videogaasna waan ka soo hadli doonaa insha Allah taala kana waxaad leeyahay asxaabta saa loogu yaaco wax yar oo kooban oo ah walaasheen dhiirigelino aan tusno maanta waa soo wareejinaya kursiga maarata waalay kursi wareegayooda ugu soo fadhiistay marka asxaabta wax kale maxay maanta halka ugu soo fadhiisan in ballanqaadka xafladda aan muuqaalka u daawano ima rajin doona insha Allah taala haddii aad seejisaana waa idinka haddii aad gaarsiisaana waa idinka labadaba idinku bay ku xiran tahay aad iyo aad bay idin salaamaya asxaabta waxaan leeyahay inta muuqaalka iyo kullu waxay idin